إمام كان كتاب كيسن وحكاها الله يا مسائش عقيدة مسائش أمهم سن أيو كاها الله يا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة كتاب كقرآن كا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي إن برين بو مسائل مهمة وكمية كهل دون هدي لهيدا إن كستو يريهي حق الفاظة لكن حق معناهان وكتاب وين مسائش كتابك وكهل وحا كمية إن أركد دون هدي لهيدا هذا التمسك بالقرآن والسنة والتحذير من البدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن الكريم كائن لقول له بدع يا خرافات كان لقى فوق هذا مسائش وكهل وحا كمذا إمام كان مسألة القرآن أو أهيد مسائل بوق بدن أهل بدع وأي كدليان وأنا أركض أن هدينا هذا القرآن كإلهي أو ضد بدن أو أهل بدع أي كشيئين إنه يهي مخلوق فعلا قرآنكم مخلوق ما هو صفة إلهي صفة إلهينا مخلوق ما وأنا أركض أن هدينا هذا مسألة وكهل دون بكمتها وحكاها الرؤية أهل جنوه إن إلهي آخر أركض دونان مركز جنة قران inay rabbi arki doonaan iyo nusuusta ku soo aroortayna waan arki doonaa haddii ilaahay wuxuu ka hadlay sifaadka ilaahay qaar ka mid ah sida sifatul yadayn labada gacmood ee ilaahay oo isaga u cunanta ilaahay u qalma wuxuu ka hadlay sifatul nuzuul ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu soo degayo thuluthul layl al-akhir marka uu harsan yahay thuluthka habeenkii ugu dambeeya wuxuu ka hadlay imaamku fadaa'ilu saxaaba ridwaanullaahi calayhim saxaabatu rasuulillahi ridwaanullaahi calayhim fadligooda ayuu ka hadlay wuxuu ka hadlay qadarka iyo maraatibtiisa aynu arki doonaa wuxuu ka hadlay cadaabul qabriga xawdka nabiga calayhi salaatu wassalaam miisaanka shafaacada masaa-ishaas uu ka hadlay iyo khawaarijta iyo afkaartooda khaldan oo la isaga digay inkastoo masaa'il muhima imaamkani uu ka hadlay haddana waxaa jirta masaa'il muhima caqiidada oona ka hadlin macnaheedu maaha masaa-isha caqadigaha o dhan inuu ka hadlay kitaab yar wey مسائل أنا كهذا باشرته مسائل أنا إمامكم كهذا وحى كمذا ولي باب الأسماء والصفات كصابسا مسألة الاستواء يدا ولي مسألة مهمة إنه إلهي مخلوق يسكسر رأيه عرش يسكسر رأيه مو نسوق هذا لكن رنتي مركز الله نبقله الله في رصد جبهة كشيخ أما منظومة ذا استواها سي إندايركت يبغى الله ومركه الشيخ ليه وكلهم يعصي وذو العرش يصفح ضدك إلهي بيعاصينا يعني الله عرشك إسكالنا ومذوح عفيه هل كاوحة الماما يا ربي إنه الرحمن على العرش استوى مركه وكهل النزول كربي إنه سوده وحوت الماما يا ربي خلقي إنه كسر مركه ستاسة وجماعة هذه مسألة الاستواء لكن سي وحوجها الله indirect أما غير مباشرة on toss أهين waxaa jira saddex bayd oo sida uu leeyahay ibn naba al-hanbali raxmatullaahi calayh oo uu ka soo guurinaya al-imaam as-safarini oo muxuu ahaa kitaabkan runtii sharax weyn buu ku sharxay oo uu leeyahay oo matbuuca waxaa jira saddex bayd oo kitaabka gabayga ka mida oo asalka sheekhi kitaabka qoray uuna lahayn oo culimo ibn naba uu ku daray oo uu ku kordhiyey saddexdaa bayd waa abyaada ka hadlaysa markaan gaarnana insha allah waan tilmaami doonaa أبيات كهل ليس عائشة فضل كذا إيوه معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين صحابي معاوية فضل جيس إيا فضل مهاجرين إيا أنصار إيا تابعين صدح ذا بيد مركز أضمر يسا أفيرسو علماء بدن وحي إليهن أصل ككتابك كمن مها علماء دنبا وحقاكو كردس وحلي الشيخ رحمة الله عليه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح تمسك قبصه وكدق بحبل الله حرق إلهي كدق واتبع راع الهدى هنون كراع ولا تكن هنقنن بدعيا قف بدعيا هنقنن أو سنة كتك أو بدعة سمعية لعلك واحد مضانتهي haddaad qur'aanka iyo sunnada qabsato ood hanuunka qaadato bidcadana aad ka fogaato tuflixu inaad liibaanto waad liibaanaysa
sheekhu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay sunnada nebiga iyo qur'aanka ilaahay in la qabsado oo lagu dhago tamassak macnaheedu waxa weeye ictasim wa khud ku dheg oo qabso wuxuu tilmaamayaa marka sheekhu raxmatullaahi caleyhi aayaddii qur-aanka ahay ilaahay markuu ka hadlayo xadhiggiisa in la qabsado muxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabsada oo ha kala tegina aayaddaasuu tilmaamaya xablullaahi marka la leeyahay xadhigga ilaahay waa kitaabullah qur'aanka wey wuxuu tilmaamayaa aayad qur'aan oo kaleo ilaahay leeyahay fastamsik biاladii uuxiya ilayka inaka calىa siraaطin mustaqiim aayaddaasuu tilmaamaya iyada ku dheg oo qabso waxyigii lagugu soo deji wuxuu tilmaamayaa aayaddii fi suurati اlأcraaf wاladiina yumasikuuna biاlkitaabi وأqaamuu الصalaaة inaa laa nudiicu ajra muslixiin aayadahaasuu tilmaamaya xadhigga ilaahay sheekhu marka uu sheegayo tafaasiir dhowr ah bay culimmadu ku sheegaan qaar waxay leeyihiin waa qur'aanka qaar waa diinta qaar waa sharciga waana isku mid tafaasiirta noocaas oo kale ah oo la yidhaahdo waa qur'aanka iyo mee waa sharciga waa khilaafka culimmadu ay dhahaan ikhtilaafu tanawuc ee ma aha ikhtilaafu tadaad muxuu yahay farqiga udhexeeya ikhtilaafu tanawuc waxa weeye waa khilaaf isku meel ku biyo shubanaya oo isku macno uu ka soo baxayo oo natiijadu ay mid noqonayso khilaafkaasoo kale waxaa la yidhaahdaa ikhtilaafu tanawuc haddaad hadda dhahdo muqdishoaan u socda iyo xamar baan u socda soo isku mid ma sem ikhtilaafu tanawuc baa la yidhahdaa ikhtilaafu tadaadna waxaa la yidhaahdaa khilaafka oppositeka iska hor imanaya marka haddaynu dhahno xabliga ilaahay ama xadhigga ilaahay waxaa loola jeedaa qur'aanka iyo sharciga waa isku mid sababta qur'aanka sharcigu meeshu ka yimid waa qur'aanka ilaahay jayid wuxuu yidhi sheekhu marka wattabici اlhudaa hanuunka raac hanuunku alcalaamata bn اlqayim raxmat ullaahi caleyhi waxa uu leeyahay hanuunku qur'aanka kariimka ah 4 siyaabood buu qur'aanku ereyga alhudaa uga hadlay hidaaya iyo huda waa isku mid haddaad aragta alhudaa ama alhidaaya qur'aanka kariimka 4 siyaabood bay ugu soo aroortay waadix 4taas siyaab iska ilaaliya waan isweydiin doonaa habeen dambe hadii la yidhaah 4 siyaabood insha allah 4 siyaabood bay qur'aanka kariimka alhudaa ama alhidaaya ugu soo aroortay midda koobaad waxa weeye alhidaayatu alcaama almushtaraka bayna alkhalq waa hidaaye khalqiga ilaahay abuuray oo dhan ka dhaxaysa jinni iyo insi iyo xayawaan iyo wax walba way ka dhaxaysaa waa nooc hanuun oo khalqiga oo dhan wadaago hanuunkaas waa midka ilaahay ku sheegay khalqiga oo dhan ka dhaxeeya waa midka uu ilaahay ku sheegay allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay alladii acطaa kula shayin khalqahu ثuma hadaa shay walba ilaahay wuxuu siiyey hanuunkiisii buu siiyey abuurkiisii buu siiyey yani waxaa laga wada acطaa kula shayin khalqahu ay suuratahu suuradiisii iyo bidhaantiisii allatii laa yashtabihu fiiha bigayrih oo wax kaloo suurada la wadaaga aynan jirin buu ilaahay siiyey kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala ثuma hadaa wuxuu ku hanuuniyey the way of life siduu u noolaan lahaa makhluuqa ilaahay ee faraha badan mid walba ilaahay wuxuu siiyey bidhaan u gooni ah subxaana allah hadal u gooni ah dhaqan dabeecad u gooni ah muxuuha nolol u gooni ah waxyaabo uu daneeyo oo u gooni ah ilaa maanta aan arkayno technologiga ilaahay bini aadanka uu gaadhsiiyey yacni xataa d n a-dooda iyo finger printerkooda iyo kulli inay kala duwan yihiin alladii acطaa kula shayin khalqahu qof walba ilaahay wuxuu siiyey suuradiisa u gaarka dadka qaar waxaad arkaysaa mataana ah oo aada isuga egeg haddana markaad u fiirsato yani meelooyin bay ku kala duwan yihin alladii acطaa kula shayin khalqa shay walba ilaahay wuxuu siiyey abuur isaga u gooni ah oo aan lala wadaagin qofka odhanaya maanta ma jiro waryaa indhahaygii baad wadataa ama dhagahaygii baad wadataa ama timahaygii baad wadataa alladii acطaa kula shayin khalqa waxaa intaasii dheer shay walba ilaahay khalqigiisii markuu siiyey haddana ثuma hadaa siduu u noolaan lahaa buu ku hanuuni shimbirtani iyo xayawaanaadkan iyo makhluuqan aan xataa caqliga lahayn way garanayaan siday u noolaanayaan way garanayaan cuntada dhibaysa iyo ta aan dhibayn way garanayaan siday u tarmayaan
family ay u noqonayaan way garanayaan carruurtooda say u korsadaan way garanayaan libaaxa dadka nagta ka dhigaya cunaya dhamaynaya wuxuu dhawaanaya una jirin ilmihiisa uu korsanaya ma taabanayo halkaas uu ku xanaanaynayo thumma hada ilaahay wuxuu ku hanuuniyey siduu noolaan lahaa subxaan allah fa waxa jiwo marka hidaayada noocaas oo kale waxa la yiraahdaa hidaaya caama mushtaraka bayna al-khalqi kull waa hidaaya guud waa hanuun khalqiga oo dhan ka dhaxeeya oo qof walba ilaahay markuu abuuray siduu u noolaan lahaa ilaahay ku dhaaragti gareeyay hanuunka saasa laga wada hidaayada labaad waxaa la yidhahdaa quraanka ku soo aroortay hidaayatul bayaani wad-dilaala waa hanuun xaqa in la caddeeyo oo la iftiimiyo oo dadka loo sheego oo loo bayaamiyo hidaayada noocaasa oo ah xaqi in la caddeeyo oo la waadixiyo waa midda ilaahay yidhi wa amaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhuda reer thamuud waan hanuuninay ha u qaadanin nebigii bay rumeeyeen oo diinta bay qaateen ha u qaadan hadday hanuuneen lama halaageen soo mayna hanuunin oo hanuunkaasi kaad moodaysa ma aha hanuunka la sheegay waxa weeye fahadaynaahum dariiqii baan u caddaynay diintii baan u caddaynay wixii nebigu u sheegayay baan u caddaynay rasuul baan u soo diray khaladkii iyo saxdii waa la kala tusay fahadaynaahum asaas waa midda ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala walikulli qawmin haadin qowm kasta waxay leeyihiin qof hanuuniya oo xaqa u caddeeya u bayaamiya wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim midda ilaahay leeyahay wey waxaad dadka ku hanuuninaysaa dariiq toosan يعني واتوسيسا وي وهديناه النجدين مد إلهي ليه لبضي طريق يعني طريقي حقها يا كي بعض الكابان تدكي وكل عضيني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كاوي والله قوضه البيان والتوضيح طريقي إن قفك الله عديو لهذا وحن هو صح وحن هو خلط تاسا هداية لهذا مدك لو حوي هداية التوفيق ولا لهذا صدحات in ilaahay uu hanuunkii iyo iimaankii qofka waafajiyo oo iimaan qalbigiisa la geliyo oo wixii ilaahay soo dejiyay qalbigiisa lagu hanuuniyo ayaa la yiraahdaa hidaayatu tawfiiq mid la yiraahdo waana midda nabiga laga anfiyay ee la yiri adiga ma awoodid mana haysatid innaka la tahdi man ahbabta midda nabiga lagu leeyahay waa midda nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu khudbaynayo ku bilaaban jiray man yudlilillahu fala hadiya lahu من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تاسوي مدة أفراد ودم بيسا وحال هذا وغاية هذه الدلالة هداية توفيق نتيجة كدلتها هداية توفيق مركا هدايوين كهذا أنصار مركا حق الله عدايو هداية البيان يتي توفيق ذا لبدا بالنتيجة كدلنيس وحكدل لنيس قيب ضدك كميده هنا نقضان فريق في الجنة وفريق في السعير باكدل لنيس qaybtii marka xaqii qaadatay hidaayatu tawfiiq ilaahay waafajiyay waxa ka dhalanaysa aakhir marka tagaan jannada in lagu hanuuniyo وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده آياتي كلا إلهي تبارك وتعالى والله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في جنات النعيم في سورة يونس جنة إلهي كهرنا تبارك وتعالى marka hidaayadani waa hidaayo ka dhalatay hidaayatu tawfiiq oo qofkii ilaahay iimaan waafajiyay oo janno ku hanuuninay kii ilaahay iimaankii ka qadiyayna ee ku dhacay iimaankiina naar lagu hanuuninay aakhiro oo ilaahay yiri azza wajal uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'buduna min duni illahi hay fahduhum ila siratil jahim jahim jidkeeda ku hanuuni samarat jidka jaxiima ku hanuuni marka hidaayadan qofna jannada lagu hanuuninayo aakhira marka la tago midna lagu toosinayo lagu dhaaragti gareynaya naarta waxay ka dhalatay hidaayatu tawfiiq qofkii ilaahay waafajiyay iyo kii la waafajin waayay bay ka dhalatay saasuu leeyahay al-calaamatu ibn al-qayyim rahmatullah quraanka kariimka hidaayadu sida qaalibka afartan nooc bay quraanka ugu soo aroortaa marka haday ku soo martay ka dhaxraadi tee laga wadaadhe way wad qiyaas kartaa wad garan kartaa tamassa qabso بحبل الله حرق إلهي قبص حرق إلهي قبص وقرآن كينو نير أما الشرع إلهي واتبع راع الهدى هنون كراع هداية وينك كهذل ولا تكوها النقن بدعيا بدعها النقن لعلك مركا واحد مضنتهي تفلحوا إن الليبانت هذا مضنتهي وحوري بدعها النقن
bidcada waxay leeyihiin tacaariif badan bay culimmadu ku sheegaan laakiin tacaariifta ugu fiican waxaa ka mid a waa wax kasta oo qofku uu rabo ilaahay inuu ugu dhowaado nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam uuna shaqo ku lahayn oo uuna ogeyn marka la soo koobo bidca warkeeda waa intaas waa wax kasta oo qofku rabo ilaahay inuu ugu dhowaado oo ilaahay uu ku caabudo nebigiina ka dambeysay calayhi salaatu wasalaam taasaa bidca la yidhaahdaa ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto whatever wax kasta ha noqoto bidcadaas marka walaa taku bidciyan meesha sheekhu uu leeyahay asalku wuxuu ahaa takuunu waxaa takuun loo yidhi muxuu ahaa ficilka mudaaric waad garanaysaa naxwo ahaan haddii uu jazma galo ficilka mudaaric kaana ka yimid ee yakuunu ah hadduu jazma galo nuunka waa la jari karaa oo min mudaaricin likaana munjazim tuxdafu nuunu wahwa xadfu maltuzim ibnu maaliga ficilka mudaaric ee kaana ka yimid ee yakuunu ah xuruufta wax jazmisa hadday gasho nuunka in la gooyaa bannaan walam aku baqiya waatay maryam lah lakin shuruud dhowro ilaa 6 meelahaasuu leeyahy walam aku baqiya walaa taku bidciyan walaa taku fii dayqi mima yamkurun walaa takun lama dhihin soo maarta walaa taku marka waana la goyn karaa wayna joogi kartaa sida lam yakun aladiina kafaruu oo kale walaa taku bidciyan bidci ha noqonin lacalaka tuflixu bidcadu waxay u qaybsantaa laba nooc bidca xaqiiqiya iyo bidca idaafiya bidca xaqiiqiya waxa weeye qofku wax aan nebigu shaqo ku lahayn at all from scratch isagu inuu ka bilaabo wax aan sida mawlidka oo kale wax zero nebiga waqtigiisii at all aan jirin buu keenayba sida mawlidka waa bidca xaqiiqiya wey bidca idaafiya waxaa la yidhaahdaa wax diintu sheegtay inuu amendment ku sameeyo isagu wax ka bedbedelo waa bidca idaafiya waxbuu ka bedbedelayaa taasoo kale lama ogolo iyaduna bidco wey diintu shaygan way sheegtay lakiin sidiisii u daa hadda adiga wax ka bedesho ood wax ka jarto wax ku darto adiga aad wax ka waxayso khalad wey bidcadu labadaasay u qaybsantaa camalkana ilaahay markuu aqbalayo imise shardi buu lahaa kutub badan oo soo akhrinay baan ku sheegnay shuruudu imise shuruuda qabuul alcamal imise laba maxay kala ahaayeen saddex bay ahayd sooma aliimaan man camila saalixan min dakari untha wa huwa mu'min iyo aliimaan haye الإخلاص تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إن عمل كان وعمل كي النبي وافقسيه عمل كالسنة إما سمي الوضع بالربعين وكوافق اللحمة الوضع بالربعين وكوافق عمل كالسنة وحال الربعين وكوافقسيه لح سيابود وافقسيه لح ذا سيابود عمل كوحال الربع حق الشرعيين طهرائية أصل كأنه كوافقسيه أو وحنا واحد دينته الشرعية يسويها واكو لبا jinsiga inuu ka waafaqsan yahay jinsiga waxaan ka wadnaa yacni nooca tusaale ahaan udxiyada waxaa lagu udxiyaystaa soo maaha geel iyo adhi iyo lo bahiimatul ancaam qofku digaag hadduu ku udxiyaystay ka warran sax udxiyadaasi ma asaxaysa mid reer magaalo 500 digaag hadduu qalo oo geel iyo adhi midna aan haysan udxiyadaasi ma ka asaxaysa ma asaxaysa udxiyadaas ma asaxayso 500 baa tiri 2000 hadduu qalo ma asaxayso udxiyo ma waa hilib bannaan ha iska cuno laakiin udxiyo ma noqonayso sababtoo jinsigii hala gowraca la yidhi ma masalada saddexaad ee la rabo inay ka waafaqdo cibaadadu ay sunnada ka waafaqdo waa qadarka xagga qiyaasta iyo amountiga salaada subax hadduu ragcad dheeraada ku dara ka war ma asaxayso waa bidca wey waxbuu ku daray aan sharcigu ogolayn qadarkii sharciga ma aha midda afraad waxaa la rabaa kayfiyada inay ka waafaqdo qaabka uu tukanaya laba ragcadood buu subaxii tukada laakiin dhinaca wuxuuba ujeedsadayba xaggaa iyo muxuu ahaa meelo kale westiga meelo kale u aaday كيفية لو تكون جري ما كيفية إنك وافق سنته زمن كإنك وافق سنته تايمك دور قادات وكتكور 4 ساعة برغني محاها طبعا كبرغدي أو 4 ترجع عدود تكت صلاته بدها أنت ولا لكن تايم كذي ما صحيح مكانك هي بوزيشن كي عبادة اللي يدها اللي جوجته هلا اعتكافات لي قول كاجا تذكر اعتكاف تكور نقولي كاجا محاها مسائل كما ذكر لكن قول كاجا نسكت جوجلنا شن جزء من ضمينية وأنا اعتكافه يا لا اعتكافكم إلهي وحول وأنتم عاكفون في المساجد ماشي لو ترجع وينته مركا يعني وحيابها وين كوافق سنتها ولا تكن بدعيا مركا الشيخ أوليه وحاس أنا بالربنا دسكيل على سبيعها نغن لعلك واحد مضنتها مركا تفلحوا إن الليبانته أيض مضنتها إن الليبانته أيض مضنتها ليبانته وحال هذا oo culimadu ay yiraahdaan liibaantu waxa weeye qofku wixii uu rabay iyo khayrkii uu rabay inuu helo
الإمام السفاريني وحو ليهي كلمة اللي هذا فلاح وكلمتها أقو استرونغسن أقو معناها وين اللغة العربية أي كلمتها الفلاح وأنا كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة خير الدنيا خير آخرة ويسو كينيس فلاح أما الليبانتو وأفر شيء باسوه اسقلية كو بقاء لا فنا هدو إلهي الليبانكو سيو وشريتان أن لما تكدم بين غنى بلا فقر غني نما أن فقر إيمانين عز بلا ذل يعز أن دل لهين وعلم بلا جهل علم أن جهل لسعن تانا دي آخرون بلقيه يا سما الليبان تنبتي ومداول ولذلك صفات ورثة الفردوس مركو إلهي كالله عز وجل محول محال لقو بالله سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون أفلح سمرت مركا أفرتات المامود بيلين قد أفلح المؤمنون وبقاء بلا فناء وعز وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل قد أفلح المؤمنون مركا هو كلمة آذي حق بدن مؤلف كرحمة الله عليه إمامك هذا الكيس وحن كفهمينا قفك بدعية ما هيست الليبان قرنتي وما هيست ولذلك يبقى وحو إليه ولا تكن بدعيا لعلك تفلح معناه وحو هداد بدع النقطة الليبان أكت هذا مطال ضال مضل بان نقنس ولذلك يبقى أهل العلم وحي هذان بدعة هي معصية كلا واحد درن بدعة هاو قفك مبتدعة أما قفك عاصية معصية كلا كجرة إنه خلديه ويسوقيه إنه توبت كان لقى يابا لكن مبتدع إنه خلديه اسمه بل إنه عبادة كجرة يسوارك سيديبو توبت كان وكو إلهي يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سيدا درت بدعة معصية كلا كحنتها سمعت سوت waxaan diinahayn buu qofku diin ka dhigaya laakiin kan tuugi xataa inuu khaldan yahay woogi kan macsiyada kala sameeyay inuu khaldan yahay woogi wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu marka mubtadi' liban ma agtaal al-imam ahmad rahmatullahi alayhi baa laga wariyay inuu yiri alaykum bis-sunnah wal hadith wama yanfa'ukum sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo hadithka nabiga alayhi salatu wassalam iyo wixii anfacaya ku dadaala wa iyyakum al-khawd wal mira waxaad iska ilaalisaan يعني علم الكلام إن ضحك شان هي ضاد فرها بدن فإنه لا يفلح من أحب الكلام ضاد هذا القف اللي قصه تاج من اللي بان يبري الإمام أحمد رحمة الله عليه نينكي محوها قرآن كوا مخلوق رجي أول لين يكمدها بشر بن غياث المريسي ونن محنادها ونبضنا أياه يدي وكانت الإمام الشافعي رحمة الله عليه شيخه بالوان بيت الله هذا نينك مال إمام الشافعي نينكي وعدي آد بقوله الله إمام الشافعي إن الأضف الصحابة ذنبوها مركو الله اللي بيقول واحد شيء سوارون لكن وحوي ما أنا اسكو كريم هاي مركز إمام الشافعي وحول مركو النصيحة كذب هذا الرجل لا يفلح كان ليبان كما صعدتون كان فايدة كما وايوا مبتدعنا خير مال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وحول شيخو ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وبيت كلابات ودين كالدين ديغو بكتاب الله كتابك إلهي الدين كالديغو أو كعباديس والسنن سنوين كين الدين كالديغو التي سنة سو أتت كتمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام مركا تنجو وتبدباديس وتربح وتربحيسا وتفائديسا sheekhu wuxuu inoo galay soo laynama dhihin bidca iskaga fogow labada shay ee ay tahay inaan qabsanno ee lagu badbaadayo ayuu sheekhu tilmaamaya waliba wuxuu tilmaamaya xarigii ilaahay ee uu soo sheegay beydkii hore beydkan uu ku faahfaahiyay samarti bixabli illaahi buu yidhi oo waa kee wadin bikitaabi illaahi wa sunani illati marka beydkii hore sharax u yahay waa more explanation beydkii hore leeyahay ودين معناه ذي وحوي كعباديسو أو دين كديجو بكتاب الله كتابك إلهي وقرآنك إلهي وي سببتنا وامحي كتابك إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقرآنك إلهي عز وجل إلهي بان حفظي أو زيادة إيا النقصان إيا خللك إلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي با إلهي أو دوري قرآنك كريم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي
waxaan idinka tegay laba shay oo haddaad qabsataan marnaba idaan lumayn waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu alay wasalam kitaabka ilaahay marka sidee baa loo qabsanaya kitaabka ilaahay waxaa loo qabsanayaa kow horta in la rumeeyo oo la aamino laba wixii uu kuu xalaaleeyo inaad xalaal ka dhigato wixii uu kaa xarimana inaad iska xarimto muxkamkiisa inaad ku camal fasho ood ku dhaqanta isagii oo dastuur ka dhigato mutashaabihiisana aad rumayso sababtuna waxa weeye axkaamta qur'aanku cadaalad bay ku salaysan tahay akhbaartiisuna run bay ku salaysan tahay axkaamuhu cadlun wa akhbaaruhu sidq ولذلك بقى الله في سورة الأنعام محوي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ولذلك بو إله عز وجل وحو كتل ما القرآن الكريم كما دام أخباره صدق وأحكامه عدل طريقة أقول توصل إنه دتك كوهجي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقول أقوم أفعل تفضيل بلد هذا يعني الطريقة أقول في عمك أقول دارك تقرينيا صوتها قالوا عمله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قالوا عمله شيخ وحا كلو تلمامي قرآن ككليا قبسا إننا نكف اللين انتبه قرآن ككليا أنا يقف لن صحما سيدا درتت باوحوا لودين بكتاب الله والسنن وهي سنة النبي قرآن كي شرحيس قرآن ككلي كوجما في الآن كرسالتها سنة النبي شرح ذا يذن ووحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سنة النبي شرح ذا عليه الصلاة والسلام سيدا درتت فإلهي وحول عز وجل النبي يقول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إن هذا شرح هذا إلهي وحول وأقيموا الصلاة لكن سيدي لو تكن لها يا إنه شرح النبي قال إنه شرح عليه الصلاة والسلام مركو كذا وحول يصلوا كما رأيتموني يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحول كويري ولله على الناس حج البيت لكن سيدي لو حج لها يا إنه شيء النبي حجي عليه الصلاة والسلام وحول لتأخذوا عني مناسككم وآتوا الزكاة بو إلهي لكن أنصبة الزكاة دي سيد الله بحن لها هي قدرك الله بحن لها يا إنو شيء النبي حديث سكو شرح عليه الصلاة والسلام سيدا درتد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه سيدا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مقدمة أصول تفسير وكل هي لتبين للناس ما نزل إليهم وحسوق لي لفظا ومعنى إنه النبي قرآن كبرتك وعده لفظي سي معني سلا بدل marka macnaheedu waxa weeye quraanka iyo sunnadu ma kala maarmaan wadin ka diin dhiga bi kitaabillahi kitaabka ilaahay ka diin dhigo wasunani sunnooyinkana ka diin dhigo allati taasoo atad ka timid waa xadiidka can rasuulillahi rasuulka ilaahay ka timid tanju waad badbaadaysaa wa tarbaxu waad ribxaysaa maxay ku kala duwan yihiin baad malanaysaa waad badbaadaysaa iyo waad ribxaysaa maxaa malanaysaa yani akhriya adduunba muxuu ugu dayn waayay sheekhu tanju waad badbaadaysaa oo tarbax muxuu ugu daray ribixu waa macno dheeraad ah sababtoo ah hadda adigu haddaad business ku jirto oo marka at the end of the year markaad xisaabinayso lacagtaadii iyo dukaankii iyo kharashkii markaad xisaabinayso haddii lafihii aad sikuur garayso miyaad ribixday mise waad badbaadday waa tanju wey haddaad hesho 50,000 oo faa'iido ama 10,000 oo faa'iido haddaad heshana ka war waa extra ma sha Allah tanju arrintu ma aha waa tarbax wey marka teeba macno dheeraada sii wadata waa tarbax macnaheedu waxa weeye tanju waad badbaadaysaa maxaa horta laga badbaadaya waxaa laga badbaadayaa dhibaato adduun iyo dhibaato aakhiro waxaa laga badbaadayaa min amraad الشهوات ومن أمراض الشبهات qofka bini aadanka ah inuu lumo oo dariiqa xaqa ah ka baydho laba siyaabood bay kaga timaadaa in badanna kutubtii hore aan akhrin baan ku tilmaanay bini aadanku inuu lumo laba dariiq buu ka yimaadaa ima shahwa wa ima shubha inay qofka shahwa ka haysato qofka hadduu lumayo ama shahwad baa ka haysanaysa xaaraan jacayl riba jacayl zina jacayl tuuga jacayl been jacayl waxaasaa qofka ka haysanaya waa shahwa ama shubha ka haysanaysa shubhadu waa bidca wax diin la moodaa baa diin isaga dhigaya labadaasaa qofka jiita oo labadaa mid ka mid unbaa exit khaldan qofka ka saara ima shahwa wa ima shubha labadaas qofka hadduu ka badbaado oo ilaahay qofka ka ilaaliyo horta maxaa lagaga badbaadaa labadaas shahwada waxaa lagaga badbaadaa bisabr qofku inuu sabr iyo adkaysi leeyahay
shubhadana waxaa lagaga badbaadaa bilyaqiin labadaa qofku marka uu ku sifoobo sabir iyo yaqiin wuxuu gaarayaa stageka ah alimaama fi ddiin waana midda ilaahay yihi wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina hogaamiyeyaal diimeed baan ka dhignay role model ah oo leadership ah oo diinta dadka ku hogaamiya waa goorma lamaa sabaruu haye wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun lianna sabirku shahwadii buu qofka ka xakamaynaya yaqiintuna qofka waxay ka xakamaynaysaa shubhadii iyo bidcadii samarid marka tanju waxaad ka badbaadaysaa min amraadi shahawaat wa min amraadi shubuhaat kadibna wa tarbax waad ribxi oo jannaad helaysaa waa akstar waa dheeraad wey يعني جنة الفردوس هي ما لسر سلب إلهي كوجينيا تبارك وتعالى تنجو وتربح معنى هذا واسداس وحد شيخو بيت كصدحات وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا وحو قالي قرآن كيف شيخو قالي رحمة الله عليه وقل وحد هذا غير مخلوق معها كلام مليكنا ملكنا والله هذا الكيس مخلوق معه قرآن كتل مامية بذلك أرنكاس أو قرآن إننا مخلوق أهين بيدانا كدين دكتين الأتقياء كوي الله كبقي والسلف كوي أهل السنة الأتقياء كوي إلهي كبقي يعني أهل السنة وأفصحوا سيدا سين عبديين وأفصحوا أي بينوا وصرحوا وأوضحوا سيدا سين عبديين sheekhu wuxuu inoo galay raxmatullaahi calayhi qur'aanka kariimka ah qur'aanka kariimka ayuu sheekhu inoo galay wuxuu yidhi qur'aanka kariimka waa kalaamu malikina horta melik iyo maalik iyo maliik intuba waa ismi ilaahi wey oo marna alf lagu taagayo marna ya loo jiidayo saddexdana qur'aanka ku soo aroortay qul illaahumma maalika almulk ملك يوم الدين أما قراءة كلا مالك يوم الدين عند مليك مقتدر مليك والله تبارك وتعالى مركز صدح ضبا أما مالك أما ملك أما مليك ومقعي لها مالك هاوي جيد مركز كلام مليكنا واساس قرآنكم مركز وحو كتل ماميا إنه هذا الإلهي عز وجل انت إن القرآن كقارن شيخ وحو تلمامي بذلك دان الأتقياء تقوضوا waxay leedahay saddex martabadood al-atqiyaa waa jamcu taqiyin taqiguna waa qofka ilaahay ka baqa saddex darajo ay leedahay taqwadu saddexda darajo ee taqwadu ay leedahay waxa weeye kow qofku shirkiga inuu ka fogaado tawxiidkana ku dhago waa midda ilaahay ku tilmaamay wa alzamahum kalimata taqwa yani kalimatu tawxiid waa shirkigii buu ka dheeraado waa nooc taqwa wey midda labaadna waa inuu qofku ka dheeraado wax alla wixii macsiyo ee dembi ah waa nooc taqwa ah wixii loo dirayna sameeyo walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow midda la yidhi wey marxalada saddexaad ee taqwaduna waxa weeye qofku waxyaabaha xataa bannaan ee maalaayacniga ah ee waqti lumiska laakiin iska bannaan inuu ka dheeraado oo uu gaadhay stage aad u sarreeya oo daaco uu u go'o waa midda ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaati levelkaasaa ugu sarreeya markuu gaadho taasi waa mid saddexdaa steeb bay leedahay taqwadu ilaahay sheekhu waxa uu leeyahay marka qur'aankiibu wuxuu ku sheegay inuu yahay hadalka ilaahay caza wajal aayado badan baa tilmaamaya yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah wa kallamahu rabbuh ilaahay baa la hadlay ilaahay inuu hadlayo tabaaraka wa tacaala aayado badan buu ilaahay ku tilmaamay caza wajal waman asdaqu min allahi qiilan waman asdaqu min allahi xadiidan fabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun inuu xataa yasmaca kalaam allah yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah marka qur-aanku inuu hadalkii ilaahay yahay aayado badan buu ilaahay ku tilmaamay garanay taas inuunan makhluuq ahayn garanaya waa maxay marka muxuu yahay qur-aanku waa sifa min sifaati illaahi caza wajal sifo ilaahay wey sifada ilaahayna waxay farac ka tahay daatadiisa sida daatada ilaahay ayna makhluuq u ahayn bayna sifadiisuna makhluuq u ahayn marka waa sifa min sifaati illaahi caza wajal maxaa daliil u ah inuu qur-aanku sifo ilaahiya oo una makhluuq ahayn ilahay wuxuu yihi caza wajal sida alcalaamata ibnu lqayim raxmat ullahi calayhi wagayruhu min aimati salaf ay leeyihiin ilahay wuxuu yihi alaa lahu lkhalqu والأمر كتاب كان راي دوري طبعا كبيدها إلامية ابن تيمية مركان أخرين المسألة وان تلمانه إلهي وحو ليه ألا له الخلق والأمر إلهي وحو ليه خلقك أفرصة هالكاس وميل مهمة إلهي خلقك نيساقاله أمر كان يساقاله آيات واحد دليل تهي قرآنكو إنونا مخلوق أهين سيدي بي دليل قطع إلهي لبا شيء بوشاق
labada shay waa labada aayadda lagu sheegay alkhalqu walamru. maxaynu soo baranay naxwadii aynu ku baranay cadafku muxuu keenaa, conjunctionku muxuu keenaa carabiga? kala duwanaansho, almughayara. idan waxaa soo baxday amarku inuu yahay hayru lkhalqi, amarka iyo khalqigu inay kala duwan yihiin. samart amarkuna waa shay, khalqiguna waa shay. amarku marka makhluuq ma ah. qur-aanku marka ma amar baa? haa. qur-aanku kategoriga uu gelayo waa kategoriga amarka, kategoriga khalqiga ma gelayo. inuu kategoriga amarka gelayo maxaa daliilu amarka? wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina. samart ruuxan min amrina yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi. waa qur-aanka wey labadaba. taasi marka waxay ina tusaysaa qur-aanka kariimka inuu gelayo kategoriga walamru. aayadahaasaa daliilo. sufyaan ibnu cuyeyna raxmatullaahi calayh muxadidkii weynaa ayaa waxa uu leeyahay, waxaa la weydiiyey qur-aanku ma makhluuq ba? markaasaa wuxuu yihi yaquulu llahu caza wajal, aayadan u keen alaa lahu a'immatu salaf alaa lahu alkhalqu walamr. soo ma aragtid? markaasaa wuxuu yihi alaa tara kayfa faraqa bayna alkhalqi waalamri falamru kalaamuhu. amarku waa kalaamka ilahay, waa hadalkiisa, waa qur-aanka. waxaa soo guurinaya alimaamu alaajuri fi kitaabihi shariica, oo isaguna min a'immati salaf ka mida ayuu sidaa kusoo guurinaya. alimaamu tabarina wuu kusoo guurinaya fi kitaabihi sunna. masalada labaad, inuuna qur-aanku makhluuq ahayn waxaa daliilu ah qowl llahi tabaaraka wa tacaala inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar. aayaddaa waxay daliilu tahay marka aayad kale lagu daro ba waxaa ka soo baxaysa natiijaha qur-aanku inuuna makhluuq ahayn. oo say uga soo baxaysaa? horta ilaahay wuxuu yihi shay walba waan abuuray biqadarin qiyaas, yacni limit, isagoo limit ah. qur-aanka haddaynu soo marray hadalkii ilaahay inuu yahay, ilaahayna shay walba uu limit u sheegay inuu limit leeyahy, limitation inuu leeyahay. kalaamka ilaahay isagu waa limit ma leh, wax xadidan oo go-an maaha. oo ilaahay muxuu yidhi caza wajal markuu hadalkiisa ka hadlayay, qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madad. hadalka ilaahay limit ma leh. baynamaa makhluuqii ilaahay uu ku sheegay inuu limit leeyahay, inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar. shay walba makhluuqa qadar iyo qiyaas iyo limit go-an buu leeyahay. laakiin hadalka ilaahay oo qur-aanku ka mid yahay isagu limit ma leh. marka alqur'aanu makhluuq ma ah. sidaan waxaa soo guurinaya alimaam abu xaatim araazi raxmatullaahi calayhi min a'immati salaf. waxaa ka mid ah adilada kutusaysa qur-aanku inuuna makhluuq ahayn. nebigu ilahay markuu baryayay muxuu dhihi jiray? acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq. ilaahay nebigu sal ly slam wuxuu magan galay kalaamka ilahay, hadalka ilahay. ma makhluuq baa la magan galaa? makhluuq lama magan galo. hadduu qur-aanku uu makhluuq yahay, yani ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigu sal lla alay slam muuna magan galeen shay makhluuq ah. taas waxay kutusaysaa marka qur-aanku inuuna makhluuq ahayn, oo uu yahay sifa min sifaat illahi caza wajal. qofkii marka qur-aanka yidhaahda waa makhluuq ama waa muctazili, nimanka muctazilada la yidhaahdo, kitaabkan waa kitaab gaaban, hadda kama hadlayna howlahooda, oo waa nimanka qaba qur-aanku waa makhluuq, waana nimankii keenay weeye. fikraddana qur-aanku waa makhluuq waxay bilaabatay waqtigii ma'muun ibni haaruun arashiid, oo taqriiban nimankii maamulka cabaasiyiinta waqtigoodii waqti dambe ah, aabihii haaruun arashiid ayuu xukunkii iyo talada ka dhaxlay. yani ninkii shanaad meelaha miyuu ah qiyaastii. marka ninkaasaa keenay. qolada muctazilada qabta qur-aanku inuu makhluuq yahay. waman qaala qur-aanku waa cibaaratun can kalaamihina fahuwa ashcariyun. ashaaciraduna waxay qabaan qur-aanku inuu yahay cibaaratun can kalaam illah, hadalkii ilaahay oo macnihiisi laga warramayo. macnihiisi baa narrated lagu sameeyey oo la soo wariyey, laakiin hadalku isagu wax lagu dhawaaqi kara ma aha bay qabaan. laakiin waxani waa macnihiisi, ma ahe lafdiga iyo macnuhuba waa hadalka ilahay, waa kalaamka ilahay wey tabaaraka wa tacaala. shubhooyinka waxaan rabaa ay deliishanayaan qolyaha qaba qur-aanku waa makhluuq, maxay keeneen iyo maxaa lagaga jawaabay? taasaa muhima. marka shubhooyinkay keeneen waxaa ka mid a, waxay dhaheen qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay marka uu leeyahay anzalnaahu, annagaa soo dejinnay. inaa anzalnaahu buu in badan ilahay qur-aanka ku sheegay. waxay la mid tahay sida roobka, roobkaba ilahay baa soo dejiyey. waanzalnaa min asamaai buu ilahay yidhi. marka kanba roobku waa makhluuq, qur-aankuna waa makhluuq bay dhaheen. sida kan loo soo dejiyey baa kana loo soo dejiyey. waxaa loogu jawaabay soo dejinta qur-aanka iyo soo dejinta roobku way kala duwanta. qur-aanka markuu ilaahay ka hadlaya mar walba anaa soo dejiyey buu ilahay yidhaha, tanziilu lkitaabi min allah inaa anzalnaahu. laakiin roobka
مر والب إلهي وحول هذا سمدان كسو دجني وأنزلنا من السماء واي منا إلهي وديه واي سمرت فرق بقى ودحي واي روبك سمدا لوغو تيرنايا مو إلهي هذا حقي وكسو دغي مودا isagaa keenay laakiin maxaa samada loogu tiirinaya waa farqi u dhaxeeyo difference u dhaxeeyo shubhada labaad ee keenayna waxa weeye waxay dhaheen warso ilaahay ma dhihin Allahu khaliqu kulli shay'in ma soo ilaahay ma dhihin shay walba ilaahay baa abuuray haa baa leeyahay hadda quraanku waa shay bay dhaheen soo shay ma dhihi kartaan shay ma meel adag ba galan sama quraanku waa shay ma dhihi kartid shay ma because hadduna shay hadda ma jiro marka shay wuu yahay shay hadduu yahay inaad ogolaato waxay ku leeyihiin ilaahay ma dhihin Allahu khaliqu kulli shay walba ilaahay baa abuuray hayso makhluuq ma marka waxa lagaga jawaabay ilaahay ba azza wa jalla shay way soo ilaahay fi suurati al-an'am kuma dhihin qul ayyu shay'in akbaru shahada shaygeeba wax la maragashada ugu weyn haye maxaa la yidhi qul illah soo ilaahay shay iskuma sheegin shay marka yani makhluuqa kaliya shay ma allahna waa shay jira way ذاتيسنا واشي جرا صفاتيسنا واشي جرا ذاتيسنا راعسنت سيدا سيدنا لقى جواب جيد مسألة كلا وحي دليشدين قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا أو أي كفسرين إنا جعلناه قرآنا وحن كأبو الري قرآن ساسي كفسرين يعني يوم جعلناه ذاس نحو لا هذا هو حالي جعل فعلك جعل لي هذا مركأ بمعنى خلقيه هل مفعول بغاته سذا ألم نجعل له عينين إذا سوى مفعولك جعل هذا له ذا مفعولك لبات سيد داركتي وقادم وإذا حرف جار بيقادته سمارت هل مفعول بيقادنا ألم نجعل لهم يانا نوابور عينين وهل مفعول وي لكن مركا كلا بمعنى خلقاء هين لما مفعول بيقادنا سيدا هذا أوكلا إنا جعلناه قرآنا هذا سنوى مفعولك كوبات قرآنا ومفعولك لبات marka macnaheedu waxa way tafsiirkaasi total tafsiir khaldan naxwa ahaan iyo luqa ahaan iyo dhinac walba ee tafsiir khaldan way waxay dalishadeen oo keenan geedkii galanba waa laga saaraa waxay keenan soo ilaahay ma dhihin innahu la qawlu rasuulin kariim rasuul kariim hadalkii weeye waxa loogu jawaabay horta erayga rasuul waa maxay rasuul waa fariinsida waa qof wixii loo soo dhiibay dadka warqad rasuul waa messenger wax loo dhiibay wixiisi aan ahayn buu wadaa oo loo soo dhiibtay amaano ku samarid inay sidaa tahayna waxa ku tusaya muxuu ilaahay u dhihi waayay innahu la qawlu nabiy ama innahu la qawlu malakin maxaa loo dhihi waay rasuul loo yidhi sababtoo rasuulku fariintii loo dhiibay buu gudbiya hadalkiisi ma aha laakiin fariin loo soo dhiibay buu sida hadduu hadalkiisi yahay innahu la qawlu nabiy baa la dhihi lahaa ama innahu la qawlu malak baa la dhihi lahaa samarid jayid آية بدن وأنا إجماع السلف وعلماء الإسلام كأردن بأسكوها فخصن قرآن كإنه يهي هذا الإلهي تبارك وتعالى شوف هذا كانان أردن مال بالجسر وحنا وحلا جاي بعض هذا يناد غريب سنيس بلاي وحنا مسوي بوح جامعة الإسلام كمركز قشنا مسائشنا وأدق بدو تجدون تمركز غف كستور ربعين المستقبل كجامعة الإسلامية هذا أما عقيدة وجراسية كقاطة وحنا ويكهر من ويكوي من دونا لبديد إنه ضادنا أردن وين ديار جرود سكيلرس عقيدة هن عقيدة أهل السنة هذا برات هذا سكيلالس ودين كدين وقول واحد هذا غير مخلوق المخلوق معها كلام مليكنا ملك يجا الله هذا الكيس مخلوق معه بذلك السيدة سيدانا كدين دكتين الأتقياء كوي إلهي كبغي أتقيادها وجمع تقييد مراتب تتغوض نوان شاقني وأفصحوا أي صرحوا سيدة سين عادية جيد ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا هل كم وحي نصع وضع لبقلوا أو أهل البدع أو قالنا لهذا واقفة لهذا ما قاعد قالنا وحى لهذا اللفظية لبدا قالوا مسألة القرآن كمركز اللي تشوجبه مذ والبوح وقال أنقل ميل كونر وخلدن كونر بكلونته كونر كيف على صار يا مركز وحي استعمالين إريو generalization بيسمين إري جود باستعمالين أو خلدنا أي صورة قلتها إنه يهي إنه صح يهينا أي صورة قلتها مسائش عقيدة ذا مركز الوجهه إري generalization أو خلد هي صح أي كصورة قش ما استعماله صوته بلايا كوها صلوا منيس سمعت هذا هدان واحد سبيسيفيك هدان هول واجبات كهرباء وين واحد سبيسيفيك كودرة هدان generalization استعمال بلايا هوس جلس هذا وقيل يعذر دار بدهلس
cudurdaar baad helaysa marka waxyaaba generalization oo isticmaaleen qolyaha qur'aanku waa makhluuq leh oo ay rabaan dadka inay u hoosgeliyaan buu sheekhu ka hadlayaa oo la rabaa in laga saaro oo la yidhahdo reer ka bax qolada hore uu ku hormaraya waaqifada la yidhahdo magaca waxa loogu bixiyana waan arki doonaa haddii ilaha yidhahdo wuxuu yidhi walaa taku ha noqonin في القرآن قرآن كدحديثة واتي أكل تكون سمارة لا ذا جازمة تكون بي هيد ووجي محل لوجي هدي تكون واحد توجي محل لوجي التقاء ساكنين لا ذا سمر كتماد وحبي جزمين هيسا نون كإني جزم سال ربنا نون كقدام بيا مدة كله ووجي ورهبنا لبض رهبنا باكل ماي لبض رهبنا لو جمد واقع كرو ووجي با لطوري نون كي با صاحري نون كي تخفيف باللوجي هذا الكلام فضيدين هيا ولا تكواتي أكل مرك ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف النون وهو حذف الملتزم تبين ماله قال هذا صوت الإمام النووي إلهنا الله ولم أكو بغية ولا تكوها النقن في القرآن كالحديث بالوقف قائلا مذي هذا بالوقف وقف حسمين وقف قرآن كالحديث حسمين وقف كهو قادر إنك تجويد ك لقوا وقفنا إياك نعبد وإياك نستعين صاص لك الموضوع هذا مش عقيدة مركز اللي جوا وقف وهو شغال كلوي تاهو فاهمين marka la joogo quraanka marka laga hadlayo waqfiga isticmaalin lagama wada tajwiidka waxa loo jeedaa waqfiga qolo waaqifo la yiraahdo mubtadica oo jahmiyada kamid ah sheekhu ka hadlayaa oo waa nimanka qaba waxay yiraahdeen annagu waxaan oranaynaa alquraanu kalaamullah quraanku waa hadalka ilaahay intaasaan ku daynaynaa erayga ghayru makhluuqin makhluuq ma aha ma raacinayno waxaan ku waqfinaynaa oo ku istaagaynaa القرآن كلام الله قرآن هو هذا الكيلاهي هل كسم كجوك سنينا واقف أساسا لو بحي سمرت مركا إليهين القرآن كلام الله غير مخلوق هدان لغو دارين ولغو حصلو منكرا ولغو حصلو قف كستو عقيدة خلطان أي أمال دهانتهاي أو قرصانتهاي باكو حصلو منكرا سمرت مركا نمكا واقف هذا أبو شيخ الردين يايو وافرقة جهمية أوي نعم waxay ولا نقول إنه غير مخلوق قدر ما ينبه وتوقفوا هل كاسي كويس تاجين فصموا بالواقفة واقفة لهذا وهم شر من الفرقة الأولى علماء وحي لين يجا كوي ركشر بدن لأنهم استخدموا بعبارة موهمة كلمة بلارن أو وين أي أذيك سدين يستغل منها أهل البدع وأهل البدع وكيف إذا سنيان الإمام أحمد باوحى لويدي إن من كان واقفة ذا أورنا القرآن كلام الله غير مخلوق أم قدرين بل هذا ورك هذا كور الإمام أحمد markaasaa wuxuu yidhi alimaamu axmed raxmatullaahi calayhi qoladiyaha qur'aanku inuu kalaamkii ilaahay yahay diidan haddaynan jiri lahayn intaa waa lagu gaabsan kari lahaa laakiin maadaama qolo diidani ay soo baxday qolo odhanaysa qur'aanku waa makhluuq dee intaa lagu daayo maaha waa in hadalka la caddeeyo alimaamu alaajuri baa fi shariica isaguna kusoo guurinaya walaa taku ha noqonin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa bilwaqfi qaa'ilan mid yidhahda bilwaqfi oo ku istaago alqur'aanu kalaamullaahi keliya kuwa ku istaaga ha noqonin غير مخلوق وين تقدرتها كما قال سيدي دهن أتباع لجهم نكي جهم من صفوانها السمرقند رقي راعي وأسجحوا أي أقول لحظة جهم من صفوان وحوها نمنكي جهميتها نكي كو أبترسدان ويقوليها أهل البدع جهمية لهذا الأسماء والصفات ويديدة يعني وبابك عقيدة مركز لجوجا ومرجئة وباب القدر مركز لجوجا وقدرية قال كمذا إنه إما دون هدي له هذا nimankaas weeye waxaana sheekh u ahaa nin la yidhahdo jacd ibni dirham ninkaasuu ku abtirsadaa waa jahm ibni safwaan wuxuu ka dhaxlay sheekhiisii jacd ibni dirham isna wuxuu ka dhaxlay sheekhiisii bayaan ibni samcaan isna wuxuu ka dhaxlay ninkii muxuu ahaa yahuudigu uu abtiga u ahaa ayuu ka dhaxlay kaasina wuxuu ka dhaxlay yahuudigii nabiga sixray ee labadii ibn alcasm la dhihi jiray marka waa sanad haalig wey waa sanad yani mudlima dhulumaatun bacduhaa fawqa bacd yani oo isku abtirsanhayo khariban wey jahmiyadu halkaasay galaan ku abtirsadaan halkaasay ku abtirsanayaan walaa takuha noqonin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qaa'ilan mid ku hadla bilwaqfi istaag oo alqur'aanu kalaamullaahi keliya ku istaaga ha noqonin kamaa qaala siday dhaheen atbaacun lijahmin jahmina safwaan raggiisi kuwii raacay oo wa asjaxuu ay u leexdeen oy u dabceen kuwaasoo kale marnaba ha noqonin buu yidhi wuxuu yidhi sheekhu walaa taquuli lqur'aana khalqan qara'tuhu faina kalaama allahi bilafdi yuudaxu beydkii hore buu la socdaayo niman lafdiya la yidhahdo wey walaa taqul ha odhanin alqur'aanu qur'aanku khalqun waa khalqi haddaad godo waa khabarka alqur'aanudu waa mubtada khalqunna waa khabarkiisi jumladuna waa maquululqowl wey
haddii aad kordhigta khalqanta sida aniga uu ii kordhigayo xaala lagu kordhigaya walaa taqul ha odhanin alqur'aanu qur'aankii qara'tuhu waan akhriyey khalqan xaaluu yahay khalqi yacni makhluuq xaaluu yahay sidaa ha dhihi fa ina kalaam allaahi hadalka ilaahay yuudax waa la caddeeyaa bilafdi dhawaqaa lagu caddeeyaaye ha odhanin ku hadalka aan qur'aanka ku hadlaya waa makhluuq ha odhan qolada uu diidaya ma taqaanaa waa qolo lafdiya la yidhaahdo maxaa lafdiya loogu bixiyey waxay dhaheen lafdii bilqur'aani makhluuq dhawaaqa aan qur'aanka ku dhawaaqaya waa makhluuq hadalkaasi khaladna wuu ixtimaalaa saxna wuu ixtimaalaa dhinaca sax wuu ka ixtimaalaayo dee ujeeddadu hadday tahay aniga dhawaqaygu iyo sawdkaygu iyo codkaygu waa makhluuq hadday tahay dee codkaagu waa makhluuq hadday laakiin ujeeddadu tahay shayga aan ku dhawaaqayo een ku sawdaynaya baa makhluuqa waa khaa'inimo arrintaasi waa khalad markaas markay leeyihiin lafdi bilqur'aani makhluuq waxbay qarinayaan soo maaragti waxbay ku hoosgelinayaan iska ilaali sidaa darteed baa lafdiya magacooda iyagana lagu dhejiyey lafdiya la yidhahdaa sababto waxay adeegsadeen cibaaro dhinacna sax ka noqon karta dhinacna khalad ka noqon karta marka iska ilaali marka baabulcaqiida la joogana eray maldahan oo khalad iyo sax labadaba ixtimaala lama adeegsado waa inuu xaqu caddaadaa faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur waa inay waddadu caddaataa laakiin ixtimaalaad lama ogola markan oo kale ixtimaalaad lama ogola walaa takun marka beydkan sheekhu lafdiyuu ku radinaya beydkii horena waaqifuu ku radinaya waad kala taqaanaa labada beyd waxay ka hadlayaan walaa taku ha ahaanin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa walaa taqul ha odhanin alqur'aanu qur'aanku khalqan xaal uu yahay makhluuq baan qara'tuhu akhriyay ha dhihin sidaas fa ina kalaam allahi hadalka ilaahay yuudaxu